Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan bilaabayaa 10 kamid ah 10radeeni chapter-ka shanaad. Waxaan noqon doonaa First World War, dagaalkii koobaad ee dunida. Waa the First World War, dagaalkii koobaad ee dunida. Also sidoo kale known as waxa loo yaqaanaa World War 1. Waa magac labaad uu leeyahay. Or ama waxa loo yaqaano magaca saddexaad uu leeyahay waxa weeyaan the Great War, dagaalkii weynaa ayaa loo yaqaanaa. waxaan u ahaa Global War, dagaal caalami ah ayuu ahaa. way originating kaasoo asal ahaan in Europe qaaradda Europe ka yimid ama Europe ka yimid way that lasting ugu dambeyntiina lasting from ugu dambeyntiina waxa uu dagaalkaasi bilaabmay way 28 July 28 bishii July 1914 ayuu bilaabmay waxaan u socday to 11 November ilaa iyo 12 November 1918 ayuu dagaalkaasi socday way the Great War dagaalkan weyn of 1914 1914 dhacay waxa waa first total war inta dagaalada la xisaabiyay ama la ogyahay dagaalkii ugu weynaa ayuu ahaa in the modern history taariikhda casriga of the mankind bilaadanku uu leeyahay way in the history taariikhda of Europe qaaradda Yurubna a few events dhacdooyin yar ayaa equal la mid ahaa World War dagaalkan la mid ahaa way in destruction marka laga eego xagga burburka way people dadka were involved dagaalka waxay uga qayb qaateen in war dagaalka waxay uga qayb qaateen in iyada laba mid bay uga qayb qaateen as soldiers iyagoo askar oo dagaalamaya oo in front war dagaalka qaybtiisa hore galaya oo qoriga qaadanaya as civilians ama iyagoo shacaba oo caawinaya askartooda Bismillahirrahmanirrahim waxaan isoo wadaynaa maantana ashirkeeni the First World War way aan iska bilaabo way in 1914 the world caalamku divided wuxuu kala qaybsamay ama uu kala baxay into two opposing sides laba dhinac oo iska soo horjeeda oo dagaalamaya weer waxaanay haayeen qol la yiraahdo Central Powers ama Central Power wada dhexe and the alliance iyo qolo loo yaqaan xulafada way in 1914 the world caalamku divided wuxuu kala qaybsamay into the two opposing sides laba dhinac iska soo horjeeda weer kuwaasoo kala noqonayay Central Power qolo loo yaqaan awoodda dhexe ama Axis Powers loo yaqaanay aan iyo qolooyin kale oo la yiraahdo alliances xulafada ama xulafaysiga way hadaynu eegno opposing sideska kuwa iska soo horjeeday opposing sides kuwa iska soo horjeeday ee adduunka ku loolamay dagaalkii koobaad hadaynu eegno allianceska hadaynu soo horeysiino waxay kala ahaayeen Great Britain oo loola jeeday Commonwealth-ka ama ururkii barwaaqo-sooranka la oran jiray oo Ingiriiska iyo wadamadii gumaysan jiray ee uu sameeyay Great Britain baa la iska oran jiray Britain-kii weynaa ama Ingiriiska weynaa France oo wadanka labaad ee alliance-ka ama xulafada ku jiray Russia oo wadanka saddexaad ee isaguna xulafada ku jiray way qolada kale waxay haayeen way Central Powers kuwii loo yaqaan awoodaha dhexe ama Axis Powers-ka la oran jiray iyaguna waxay kala ahaayeen Germany Jarmalka Bulgaria Turkiga iyo Austria Hungary ayay ahaayeen qolada kale ee Central Powers way halkan waxaan ku qaadan doonaa isagana way ama in ku soo gudbin doonaa factors qodobada dad caused sababay ama keenay the World War 1 dagaalkii koobaad ee dunida qodobo dhowr ah ayaa inoo qoran oo afar qodob ah waana ka badan yihiin way qodobka koobaad waxa noqonayaa War Alliances isxulafaysi dagaalka ka hor jiray intaan dagaalkan koobaad ba dhicin isxulafaysi ka horeeyay way Austria wadanka Austriana invaded wuxuu qabsaday Serbia dalka Serbia oo waxyaabaha keenay dagaalkii koobaad bilaabmo waxyaabaha kale keenay dagaalkii koobaad inuu bilaabmo waxa kamid ah Russia wadanka Russia oo mobilized isaguna casriyeeyay way idis army ciidankiisii militariga ama ciidankiisii qodobka afraad wuxuu inoo noqon doonaa Germany dalka Jarmalka oo declared war isaguna dagaal u cadeystay inuu ku qaadayo on France dalka Faransiiska oo halkan waxaan ku qaadan doonaa
way 10 noqonaya factors qodobada that caused sababay the World War 1 dagaalkii koowaad ee dunida maxaa sababay ama ba keenay waxa koowaad ee dagaalkaasi sababay ama keenay waxay noqon doonaan pre-war alliances isxulafaysi dagaalka ka hor jiray Australia dalka Australia la yiraahdo oo invaded isaguna qabsaday ama ba la wareegay Serbia dalka Serbia oo xoog ku qabsaday waxyaabaha keenay dagaalkii koowaad way Russia wadanka Ruushka oo mobilized isaguna casriyay ama horumariyay its army ciidankiisii waa qodobka afraadna wuxuu noo noqon doonaa Germany dalka Jarmalka oo declare war dagaal u cadeystay inuu ku qaadayo on France dalka Faransiiska